Waawaray Guriceel waxaa ka soo baxay ruux marlaarag ah oo sheegay in qofka uu daaweeyo uusan weligii dhimanaynin. Waxaan ku ballan qaadayaa inaad weligaa dhimanaynin because qof caafimaad qaba maba dhinto. Ninkan muxuu qadarta la weyne ka aaminsan yahay. Muuqaalkan ayaan kugula wadaagayaa ee fadlan daawada sii sheer garee oo saaxiibadaada la wadaag. Shil hadduu ku dhac gaar waaye ceel hadduu ku dhac laakiin asagoo meel ka socdo caafimaad qaba maba dhimanayo ilaa taas ku sheegaya qof kasta oo muuqaalkaani soo gaaro fadlan ha sheer gareeye si uu gaaro dad badan oo uga faa'iideystaan. Magaciisa waa David Zola waa orodyahanka ugu dheereeya dhinaca orodka Galmudug. wadnihiisa wuu fooraraa wuxuuna isagoo si xawli ah u ordaya uu ku tagay Dhuusamareeb oo masaafo dhan 63 kiiloomitir u jirta degmada Guriceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. weligii muusan daalin mana uusan huufin waxaana xusid mudan in marka uu soo booqanayo hoyga ay degan tahay hooyadiis macaan oo ku yaala degmada Matabaan oo masaafo dhan 50 kiiloomitir u jirta Guriceel inuusan baabuur u raacin oo uu orada ku tago degmadaasi. hooyaday degan Matabaan markii aan rabo inaan hooyo aado waan u ordaa bis baabuur ma raaco. xagee ka baxdaa? Guriceel ka baxaa waaka Guriceel ka baxaa hooyo orada uga taga 4 saacadood aan u socdaa marka hooyaday ayaa waxay degan tahay Matabaan markii aan rabo inaan hooyo soo booqdo Guriceel ka ordaa Matabaan orod ku taga hooyo habeenkaas la soo seexda subaxii ka soo ordaasan Guriceel ku imaada haddana halkan waxaan fartiin uga dirayaa maxaa dhalinyaradu waxaan u ballan qaadayaa haddii orodka laasimaan 1 kiiloomitir ba ahaade daily oo routine ay suubsadaan maalin kasta ay suubeysa ka daalin inaysan weligood duqoobeen horta u ballan qaadayaa waxaan ku ballan qaadayaa inaad weligaa dhimanaynin because qof caafimaad qaba maba dhinto. shil hadduu ku dhac gaar waaye ceel hadduu ku dhac laakiin asagoo meel ka socdo caafimaad qaba maba dhimanayo ilaa taas ku sheegaya arinta dhimamiisa waxaan ka wadaa qof aanu qadar Ilaahay kuma darin horta laakiin qofku haddii uu ordo mar walba oo jirkiisa ilaashado caafimaad buu ku waarayaa inta noloshiisa intuu nool yahay caafimaad ku waaraya yani asagoo xanuunsan ma la arkayo. David Zola hadda waxa uu ku jira diyaar garowgiisii ugu dambeeyay ee dhinaca orodka wuxuuna isu diyaarinayaa in sanadkan uu matalo Soomaaliya maadaama marar badan dhalinyaradii u ordaysay Soomaaliya ay guuldarro u soo hooyeen. muuqaalkan sii sheer garee oo saaxiibadaada la wadaag walaal. marka calankii Soomaaliya waxa metelaya dad baruur ku rarantoon talaabo qaadi karin ayaa dawladii u diraysaa inay uga qayb gasho Soomaaliya orodyahanada orodka marathonka ayadoo ay joogaan dhalinyaro farda ah oo koobka qaadi kara oo orodyahanada carrada dhooban yihiin marka arintaasna waxaan leeyahay dawladdu ha ka fikirto.